وقور دنبه وهبين وحنان هاتن بلعبنا موقعنا دي كنت سيمنا نوشي وقتي دنبه هبينكي إيه هرقيسة guud ahaan Hargeysa kaalmaha shidaalka ayaa kuwa furan xilli walba oo habeenkiya waxaan kala kulmay kaalintani koox dhalinyaro ah kuwaas oo ugu qaabilay soo dhaweyn weyn sanado ka hor way adkayd in xilli dambe oo habeenkiya aad ka hesho magaalada Hargeysa kaalmo shidaal oo casri ah maqaaxiyaha kala duwan ee cuntada ayaa iyaguna kuwa si weyn ugu soo kordhaya magaalada isla markaasina dhalinyarada haweenka iyo bulshadu ay u yihiin goobo ay ku kulmaan habeenkii isla markaasina ay ku qaataan waqtiyadooda kala duwan waxaana yihiin kuwa la mid ah kuwa caalamka asxaabta halkan waxay ka mid tahay goobaha isugu yimaadaan dadka ku nool magaalada Hargeysa habeenkii iyo dadweynaha kale dalxiiska ugu imanayaba guud ahaan magaalada Hargeysa iyo bahan runtii waxa ka mid ah goobtani goobahan ugu xiisaha badanahay uguna jecelahay in mar walba fadhiisto cuntadeedana ka cuno inta aan joogo magaalada Hargeysa ila kale waad kula talan asxaabta guud ahaan naga daawanaysa caalamka dhan in haddii aad Hargeysa timaadaan ay goobtan tahay mid kamid ah goobaha cajiibka aad xiisoon doontaan guud ahaan gaar ahaan habeenkii maadaama ay joog aad u degan yahay وقت أصحابته ولنا وحنا كوجود ترنا برنامج كني واسدين ولا شهبين كي هرجيسة سجل بلدغ ما يمكن لا تشوكتا برتمي مقالة هرجيسة ين شوكنا ساعد وحيل دنبه لكن ده وحوي مقاحيه هي كافيه شوبية دي سوبر ماركت دي دمان واحد كستوي فرين برسجل كل دو برنامج كنا أيوب شو هي هبين كي هرجيسة وان كله هاي أيوب مركله وان كفر حسنا هينا كله هاي أيوب شو وقصوا موضوع فرحة وين بيت هاي ده هبين كهرجيسة وادي قاعدة حل الدنبه وصق نحاول هلك شوكنا نقول لنا يرى ولا سكري ودن عندنا إلى حلقة ربنا نقولنا نقوليه نكون نقولنا ده نرش وقتها سوي سعانة سايو ده سوق وفريو باقاديد كويس عنا قاديد كده بديها حتى سعدا ده ولا أركي ساي أصحابتك ورن دلك تبدي سكون ولا إنه ربيني هرجيسة صوب بحرام محد كله تسلم أصحابته حنلاقي هرجيسة روح لذا كالية الدعوة كالية نقول عوي هبينكي كالية استرس كقربها كجر رئيسته ومحيه تكون دريمة دجنا شو يحسلوني ده فرحة وين بيناتها قربتشو جنينا يصور لعبتار ورك فرح سنة هاي waxaan jecelnahay inay la yimaadaan fikrado cusub maadaama ay dalal kale oo horumar ay boqolaal sano inaga waaweyn ay la joogaan waxa la aragtiyaha cusub ee yaala dalalka aad joogtaan keena kaalay Hargeysa maal gashada kaalay ka faa'iideysta horumarka ay Hargeysa sameynayso oo qayb ka noqda saad markii horeba qaybta uga ahaydeen ilaa 10 sano ka hor ama 12 sano ka hor xitaa sanad 9 sano ka hor way adkeed hadda ay kale sida loo caawiyo bal ka waran isbedelka intaas laga adiga isaga lahan waxna ku sameynay aad iyo aad isbedel weyn baa dhacay anigu Hargeysa waxaan ka mid ahay dadka yimiday waxaan imid sanadkii 2011 xilligaas aan dugsiga sare halkan ka bilaabay noloshu sidan ma ahayn daarahan dhaadheer ee qurxaa badan hadda in hoos taaganahay ma jirin wadooyinkii iyo infrastructure wuxuu ahaa mid aan xilligan oo kale ahayn laakiin waxaan soo daawanayay soo arkay horumarkaas baaxadda leh ee dhowr iyo 10 sano la sameeyay marka waxaan daawanayay iyadoo daarahan dhaadheer iyo dhismayaashan la bilaabay oo haddana la dhisay qurux bateen wadooyinkii waxaan daawanayay iyagoo la dhisay oo markii hore aan dhisnayn marka waxaan leeyahay 10 sano si xawli Hargeysa ay u koritaankeedu wuxuu malaha ku jirtaa meelaha geeska Afrika ugu koritaanka sagal baldeeq aad iyo aad u mahadsan tahay goobaha cawaysyada ee dhalinyarada ayaa iyaguna kuwa sanadada u dambeeyay ku soo badanayay Hargeysa waxaana goobtani ay tahay goob dhalinyaradu ay ku caweeyaan kana helaan caanaha geela oo isla markaas la soo lisay iyo madadaalo badan caanaha geelin hayna وحلي قردن باها عويسة هذا صولس كودي هبنمو كودي هبنمو أنا كل ولا قدر يبي سيوناكس ما شاء الله مركزات الرئيس جيسا حنو شيء إن هالكان أقوي من يعني عويس هني هي جيلة فراشة فاستفوريدي قابي شح لقو عبي قابي لقو بنيني لين يردي أنا والله في الملك هنقارا لين يرد أنا تمادا عرّها نوي مع دوا قوا قابي كعياري dhalinyar odayaasha waaweyn baa yimaado caanaha geela soo doonta cunto wadaniga baa taalo oo
cuntadeena wadaniga ahayd baa iyaduna taala iyadana la isticmaalaa geela yellow qof fresh caanaha geela aad ku soo dhaw caanaha geela fresh adiga ayuu soo dhaw asxaabta bahalka soo wada arkaysaan waxa weeye koobka lagu shubo marka caanaha geela la siiyo صح af Soomaaliyaana dhiil buu noqonayaa madowga dushiisa ka muuqdana waa culitaan waa la culay marka waxa weeye marka la culo ayuu soo noqonayaa ma sha Allah ku soo dhawaada caways iyo caana geeliga gacmo furan hawo fresh iyo caana fresh goobaha laga iibsado alaabaha guryaha iyo kuwa cuntada ayaa la mid noqonaya kuwa caalamka isla markaasina si fudud aad uga adeegan karto xilli walba oo habeenkii asxaabta halkan waa mid ka mid ah supermarketada ugu waaweyn ee ku yaala magaalada Hargeysa waa xilli dambe ama goor dambe habeenimo waxaana aan si caadi ah uga helaynaa adeegyadii iyo waxyaabaha aan u baahnayn inaan iibsano si la mid ah sidaas adiguna goor kasta iyo xilli kasta habeenimo haddii aad timaado magaalada Hargeysa waxaad ka helaysaa goobo noocan oo kala isla markaasina aad ka helayso adeeg walo cajiib ah waxaan soo xasuustay safaradii aan ku mari jiray magaalooyinka Istanbul iyo Dubai iyo alaabihii iyo adeegii aan ka heli jiray runtii waa kuwa la mid ah haddii aanay kaba wanaagsaneyn sidoo kalena waxyaabaha kale cajiibka waxaa ka mid ah in isla adeegaygan aanan haysan wax lacag ah oo kaasha balse aan ku bixinayo lacagta ay ugu jirta app-kayga ama online-kayga si yar oo fudud waayo wax kasta runtii aad bay isku bedeleen teknolojiyaddan waxay noqotay mid casri ah halkan saad wada arkaysaan waa mid kamid ah wadooyinka ama laamiyada ugu waaweyn ee magaalada Hargeysa kaasi oo mara bartamaha magaalada Hargeysa saad wada arkaysaan waxa halkaasi ka muuqda nalalka haga baabuurka ama gaadiidka gadaasheeda ama dabadeeda waxa maraya kumanaan gaadiida halkan ciidan ma joogo askari ma joogo kaliya ta waxa kala hagaya nalalka haga gaadiidka sanada ka hormay lahayn magaalada Hargeysa horumarka noocan hadda se waxa ku soo kordhay nalalkani oo kala hagaya gaadiidka iyadoo ay tahay waliba goortu xilli dambe habeen saacadu haatan waxay maraysaa 12 iyo barkii habeenimo waxa weeye halkana waa mid kamid ah wadooyinka ugu caansan guud ahaan magaalada Hargeysa uma baahnid 12 iyo barkii habeenimo inaad ka fikirtid halkaad ka soo saaran karto lacag haddii aad u baahan tahay lacag wax ku cunto ama wax kale soo arkaysan mashiinada lacagta oo dhan halkan ay yaalaan waana saacadu waa xilli dambe waxna ay kamid tahay waxyaabaha cajiibka ay ku soo kordhay 10 sano u dambeeyay magaalada Hargeysa maadaama sanada ka hor ay adkayd tan oo kale in laga helo magaalada Hargeysa goobaha ciyaaraha kubadda iyo jimicsiga kala duwan ayaa iyagana dhalinyarada u saamaxay inay waqti ku qaadan karaan xilliyo dambe oo habeenkii waxana ay tani qayb ka noqon kartaa ilaalinta caafimaadka bulshada saacad walba xilli wala noqotaba waliitoog habeenimo weeyaan garoonta lagu ciyaaro garoonta lagu ciyaaro arkasaan iyo wixii kale hada surface ahaan wixii kale loo baahan gymti waatana wala ciyaaraya cafeteria uu furayay Hargeysa wallahi in badan way isbedeshay badan سامبري هور ميهانش لكن في عم يسوق الدشيو مرة كذا ميسوق كيسي هور مرة waxaad ka mid ahayd dhalinyaradii kubadda cagta in badan ciyaariyay runtii bal ka waran waqti 10 sano ka hor iyo hadda farqiga u dhaxeeya wallahi billahi farqi aad u weyn baa u dhaxeeya waayo bariyo hore da steed habeen sagaalkii wala isma waarki jirin maanta ma diyaar kan 12 habeen ma kawada habeen labada habeen oo baahan tahay shiimtu way furan tahay hore kubadda lagu ciyaaray waa kana waa lagu ciyaarayaa way ku jiraan dadkii cafeteria u shidiyay wallahi isbedel aad u weyn baa dhacay ما شاء الله كأصحابك كداون السفر أنت ذلك أنا قدر يسمع حياتي سفر أنت تذكر كبتشوكا ونشيء وليبنا مجال أنت ده بيثبت الشيء ما دام يثبت الشيء مجال وحلا جاي كل شيء ده خاص يثبت له خاص ده خلاص يصير وادي يصير ويننا أصحابك كبدا عكسك شعل كور يجا محل كبدا عكسك شعل حفلة يصير وادي تايم مغلبة تايم ملأ كل ده من ولا عيارة وخاص يفرد شيء توفريه أوكي ما شاء الله كل مرة أدو تيم كي واحد رونالدو تغيير ترى سما سكمت بيننا ودنت هاي أيوه هجيب يا حشوتك goobaha cawisyada
ayaa iyaguna ah kuwa habeenkii si weyn ay dhallinyaradu u tagaan isla markaasina ay ku qaataan wakhtigooda waxaana ay yihiin kuwa aad ka helayso cayaaraha kala duwan ee hiddaha iyo dhaqanka iyo madadaalo badan daawade kani waxa uu ahaa muuqaal aan idinku tusayey nolosha habeenkii ee Hargeysa iyo waxa ku soo kordhay sanadadii u dambeeyey maadaama Hargeysa ay sameysay horumarro kala duwan sanadihii u dambeeyey ku xunna waa Yubshow lana soco muuqaal ka lamid ah guud ahaan magaalooyinka iyo deegaanada Soomaalida